xeerka marka kuma cadda cidda soo saaraysa waxaan qabaa marka meeshaas in lagu siyaadiyo golaha shacabka inuu yahay cidda xeerka soo saaraysa si hadhowdii aan meel kale nololo aadin qodobka 16 ee ka hadlaya xilwaayada gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen faqradiisa saddexaad طبعا waxaa soo qaadateen ereyga mooshinka marka ma ahan luuqad Soomaaliya marka anu waxaan dhihi lahaa soo jeedin hal yiraahdo soo jeedin kadib markaas bracketka hal furo hal geliyo kelmadda mooshin طبعا isla farqada shanaad ee qodobkaas sida uu qoran yahay ayaa sax marka waxaan qabaa in saas loo waafajiyo faqrada shanaad isla qodobkaas markii laga hadlayay gudoomiyaha markii mooshin laga keenay shir gudoominta wuxuu leeyahay wuxuu gudoominayna gudoomiyaha maalinka codeynta laakiin inta doodu socoto gudoomiyaha isaga shir gudoominaya meesha marka waxaa ka imaan karta conflict of interest marka waxaan qabaa bal dib in loogu laabto yani gudoomiyihii tusaale ahaan sharciga horta waxa loo samaynayo qof ma ahane waa sharciga raba dadkan inuu kala hadlo marka gudoomiyuhu meeshaan fadhiya haddii xildhibaankii ka doodayay meeshaan inta mikrofoonka soo istaagay eediisa oo qaato waxaa dhici karta gudoomiye inuu yidhahdo waraa fariisa codku waa kaa xiran yahay marka meeshaas waxaan qabaa in siday u qoran tahay waxaan u malaynaa sidii xeeroosaadkii hore u qorneed xoogaa waxbaa ka bedelana bal hadla iswaafajiyaan dhihi lahaa ayadoon lagu tarax tegaynin sidii ayaama dhaweyd dhacayadoo kale oo ayada ruuxeeda gudoomiyihii awoodihii oo lalahaa aan la laalin gudoomiyaha waxa looga hadlayo shaqadiisii sidii caadiga ahayd ayuu u gudanayaa laakiin dooda marka arrinta mooshinka laga hadlayo keliya weeye waxa arrintu ay qusaydo marka waxaan qabaa meeshaas in dib loogu laabto ayada ruuxeeda oo la fiiriyo oo la waafajiyo xeeroosaadka sidii hore u ah waxaan kaloo qabaa isla qodobkan in lagu siyaadiyo faqra ka hadlaysa xilliga mooshinka la qabanayo mooshinka goormaa la qabanayo ma habeenkii la qabanaa mase shaqada qofku ma asagoo xafiiskiisii jooga ayaa mooshinka la qabanaa mase sariirta asagoo jooga lagu geyna meeshaas aniga waxaan u arkaa annagoo ka cibro qaadanayna wixii aan soo marnay hadda muddadii lasoo dhaafay inay aada muhiim u tahay in lagu siyaadiyo faqro cusub oo ka hadlaysa mudana gudoomiye xilliyada la qabanayo mooshinka qodobka 12aad isla xeeroosaadka ka hadlaya xadidaadda fadhiyada golaha shacabka faqradiisa labaad waxay ka hadlaya xilliyo waqtiyeysan marka waxaan la qabaa saaxiibadii soo jeediyey xilliyada salaada iyo qadada inay meeshaas ku caddahay oo xildhibaanku uusan iska bixin ayagoo xilligii la gaarin ama waqtigu intuu ku dheeraada dadka qaarkood ayagoo khudbadihii muhiim u arkay inay dhegaystaan in hadhowdii ay dhacdo inay inta iska baxaan wax muhiim ay dhaafaan amaba salaadii ay dhaafto qofka uu ku nogaado kursigiisa isla qodobkan 12aad faqradiisa 13 iyo 17 waxay ka hadlayaan qaraamaad ku waajibaya xildhibaanka qaraamaadkaas ama lacagahaas qofka koraya laga qaadayo ayada ruuxeeda in la qeexo aad ii sheeg munaasib u ahaa leh waxaan kaloo qabaa faqro cusub ayadan in lagu siyaadiyo oo qusaysa dabcan waa laga hadlay kooramka iyo sida uu ku buuxsamayay iyo xilliyada iyo waxaasoo dhan waa la soo sheegay in lagu daro faqro ka hadlaysa mudana gudoomiye xildhibaankii waa yimid gurigiisii uu ka yimid hoolkii shirarka uu soo galay wuxuu diiday inuu saxiixo maxdarkii si kooramkii uusan u buuxsamin يعني دور جاري نقول يعني لو بقول حلبانا ماشان جوكتا بقول يطبن كليها أنا آسف أنت كلوا جديدة هو حيب جديدة هي بشكل رفض حلبان كمرك يماذا ما لو يتصاص وكلا للسمية بناه كمرك لجسوا هم يليسكي لو بقول حلبانا جوكتا بديه مرك اللي بقول يطبن آسف حلبان ليه مرك قال كله هذا عيد بناه أنت لو استاجر حلبانا ده قال له بنجرينا ولا ليه يا حسين إحنا عمل لابد ليه فقرات كهلا إذا مرك حلبان كأنت يماذا جديدة إنه صحيح كارم كي وبيحيو فقرات كهلا إذا أنا وحنا قبائل قدو كسبوا صدر سجن قدو كسبدي لبعتنات كهلا إذا فرنان تفضيله بره شعبك طبعا ميديا مرك اللي هلا يا ما ورباهين توحد يجري بوانك جودي يعني جودي بدو بوانك جارو يراهدو هلا صاروا ورباهين بوانك أصلا هذا ناس وحنا قبائل مدن جودو مية أنا ضد شعبان مثلنا برلمان كانوا وقولين شعب كمثلية إلا دقيستو مهم وحان قبا مركب قوان قد كليه إن على دين قوان تقولها اللي يرادوا الله عسلين ناشاس سببتها وحيابة ضدك أركايا مهم إنه يقطع
ayaa dhici karta in la yiraahdo go'aan guddiya lagu soo gaaray warbaahintana waa la saaraa xildhibaanaduna ay u arki karaan inay muhiim u tahay shacabku inay dhageystaan meesha marka waxaan qabaa guddiga ay ku qoran tahay go'aanka golaha in la yiraahdo waxoogaa la yara cusle isla qodobkaas faqradiisa labaad